waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo ka jawaabay war ay baahisay BBC-du Salaad iyo madaxda sirdoonka Kenya oo isku afgarteen arrimo dhowr ah oo xasaasi ah iyo qaybta dambe warkeena aad ku maqli doontaan warbixin ku aadan dhaawicii 5 sano ee uu halka khudbad ku dhayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobada waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janaalka Hubal News fadlan daawada dad janaalkan ku cusubtaa qayb ka noqo saaxiibada kale wararka joogtada ee xasaasiga ah laabaan halkan ku baahina aragtidiina qaybta hoose nagula wadaaga muuqaalkan oo si share gareeya asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan warka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga hadlay wararka la xiriira in uu kulamo kala duwan la qaatay waqtigii uu Soomaaliya xilka ka hayay mas'uuliyiin sarsaro Israa'iil sida ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu kulamadan oo la kala sheegay inay ka kala dhaceen Tel Aviv iyo Nairobi ayaa la baahiyay inuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si qarsoodi ah kula yeeshay madaxda Israa'iil iyagoona ka wada hadlay waqtigaasi danaha labada shacab warkan oo laga soo xigtay BBC-da qaybteeda laanta afka Soomaaliga isla markaasna warbaahintu si weyn u tabisay ayaa saacadii ugu dambeeyay soo baxayeen warar ka duwan ka oo ku aadan in laga been abuurtay Farmaajo haddaba garabka madaxweyne Farmaajo ayaana baahiyeen in BBC-du ay ku khaldoonto arrinkaas raaligelin ay ka bixisay warka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri bogaadin go'aan hay'adda BBC-du kaga laabatay macluumaadkii qaldanaa ay ka faafiyeen madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda xafiiska warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu bogaadinayaa baaliyiri hay'adda warbaahinta BBC-da sida ay uga garawday dacwadii uu gudbiyay xafiisku iyaga oo dib uga laabtay xog aan sax ahayn oo ku saabsaneed safar aan jirin oo ay kaga been abuureen madaxweynihii hore tallaabada ay qaaday warbaahinta BBC-du oo dadka u cadeysay inaysan sax ahayn xogtaasi ay baahiyeen iyo qaladka ku jiray iyagoona ka saaray baraha iyo mareegaha ay ku baahiyeen raaligelina ay ka bixiyeen waa cashar wanaagsan oo xoojinaya anshaxa saxaafadda iyo mas'uuliyadda warbaahinta ka saaran u adeegista dadweynaha sidoo kale isla warkan ayaa lagu yiri xafiiska warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu adkeeyay ahmiyadda xuriyadda warbaahinta iyo waliba doorka ay ugu jirto shacabka ee xiriirka xogsiinta ah baraarujinta iyo waliba madadaalada kuwaas oo muhiim u ah dowladnimada iyo horumarka dalkeena ka socda si kastaba warkan ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jawaab u ah tallaabo ay qaada BBC-da taas oo ahayd markii ay baahiyeen xog ku aadan kulamo qarsoodi ah oo ay yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax ka tirsan Israa'iil BBC-da la fahanteeda ayaana xogtaas ka soo xigatay warbaahin ka howlgasha gudaha Israa'iil kuwaas oo wareysteen xubno ku dhadhow madaxda Israa'iil isla markaasna shaaciyeen xogta kulamadan dhexmaray Farmaajo iyo waliba Netanyahu iyo xubno kale oo sarsaro ka tirsan Israa'iil geesta kalena Salaad iyo madaxda sirdoonka Kenya ayaa gaareen heshiisyo dhowr ah sida aan ku heleyno wararka ka imaanaya Nairobi saacadii ugu dambeeyay waxaa si isdaba jooga uga soconaya magaaladaasi kulamo kala duwan oo ay yeelanayeen madaxda sirdoonka wadanka Kenya iyo xubno ka socda Soomaaliya uu hogaaminaya taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Maxamed Salaad kulamadan ayaa inta badan diiradda lagu saarayay arrimaha xog isweydaarsiga labada dowladood iyo dhanka amniga oo qayb ka ah heshiisyo ay hore u gaareen madaxda sare ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan madaxweynayaasha labada dal Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta Salaad iyo xubnaha kale kulamada ay yeesheen oo ku gadaabnaa xogo xasaasi ah ayaa la sheegay inay inta badan isku afgarteen waxyaabihii ay diiradda ku saareen kulamadooda waxyaabaha lagu heshiiyay ayaa waxaa qayb ka ah xog isweydaarsiga weerarada ka dhanka Al-Shabaab duqeymaha ay fulisa Kenya oo inta badan khasaarooyin kala duwan ka soo gaara dad shacab ah kuna beegsato xarumo shirkado ganacsato Soomaaliyeed ee leeyihiin ayaa kamid ah heshiisyada ay gaareen ayaana ku wargeliyay dowladda Kenya sirdoonkooda inaysan qaadi karin tallaabo aysan ka warqabin dowladda Soomaaliya isla markaasna ay joojiso beegsiga gaarka ay ku hayso ganacsatada Soomaaliyeed hantidooda sidoo kale waxaa la sheegay in heshiisyada ay kala saxiixdeen
dhanka sirdoonka iyo amniga la xiriira dhinacyadan ay qayb ka tahay inay iska kaashadaan weerarada ka dhanka ah al-shabaab gaar ahaan xubnaha kooxdaas ee ka howlgala xuduudda ee wadaagaan labada dowladooda. ahmiyadda ugu weyn ee kulankan ayaana salka ku hayay isbedel la filayo inuu ka hirgalo deegaanada Jubbaland gaar ahaan dhanka maamulka oo dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud la sheegay inay daneynayso in talada xafiiska laga wareejiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muddo dheer talada Jubbaland haya. waxaana la tilmaamayaa in sirdoonka Kenya iyo Soomaaliya isku afgarteen qodobkaas isla markaasna ay labada dhinac isku fahmeen shakhsiga lagu bedeli lahaa Axmed Madoobe iyo nidaamka lagu wajihi lahaa arinta gobolka Gado oo muran xoogan uu ka jiro. socdaalka Mahad Salaad uu ku joogay Nairobi ayaana guul weyn ku soo dhamaada sida ay tilmaamayaan xubno ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo nala hadleen. waxaana la filayaa dhowaan sidoo kale in la guda galo fulinta heshiisyadii waaweynaa ee ay wada gaareen Soomaaliya iyo Kenya taa oo ay qayb ka ahayd isku furidda xuduudda labada dowladood, dib u bilaabidda qaadka dalka Kenya ee loo iibkeeno gudaha dalka Soomaaliya iyo in la fududeeyo socdaalka shacabka Soomaaliyeed ee wadanka Kenya. waa hagaag daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa warbixin ku aadan dhaawacii 5 sano ee uu halka khudbad ku dhayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dagaalkii uu farmaajo la galay dowladda Jabuuti intii lagu guda jiray muddaxileedkiisii wuxuu ahaa midkii ugu ballaarnaa ee isaga iyo jamaahiirtiisu isku diidaan markii laga hadlo jamhuuriyadda 60kii xorowday ee Soomaaliya. waxaa ugu badan oo dadku ka siman yihiin waa nuuca dhaqanka la tusayo dowladda Jabuuti. badi madaxda Soomaalida waxa ay u muuqdaan kuwa ay shacabkoodu waajib uga dhigeen in Jabuuti markasta laga soko martiyo dal walba xagga la macaamilka siyaasadda iyo waliba iskaashiga gobolka. dhaliyada iyo dhaqanka labadan ummad ka sokow waa adag tahay in Soomaaliya lagu beero naceeb Jabuuti sida caadiga. madaxda inta badan waqti iskama geliyaan waxa ay u jeedaan inaan la marsi karin shacabkooda, balse farmaajo waa ku adkaystay dagaalka Jabuuti ma sahlin cid la qaada. toddobaadkan dib ayuu isku bedelay dareenkii labada shacab, cilaaqaadkii iyo mudnaantii. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 2 cisho Jabuuti ku sugnaa ayaa qaaday dhowr tallaabo oo u muuqdeen boogdhayid, cudurdaar, furista dariiq cusub, dib u hagaajinta cilaaqaadka iyo waliba muujinta dareen walaalnimo. haddaba sheekadan waxaan ku soo koobaynaa dhowr arrimood oo laga qaadan karo nuxurka safarkii madaxweyne Xasan Sheekh ee Jabuuti. 1. cudurdaar. dowladda Jabuuti oo kaalin weyn ka qaadatay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib ayaa macaamiil adag kala kulantay nidaamka madaxweyne Farmaajo. inkastoo taas ee shacabka Farmaajo ku khilaafeen, haddana Jabuuti waxay u muuqatay inay sugaysay hogaamiye Soomaaliyeed oo kaga cudurdaara macaamilka aysan mudneen ee Farmaajo kula kacay. kelmadihii uu Xasan Sheekh ka jeediyay baarlamaanka Jabuuti hortiisa oo dhowr dhinac taabanayay ayuu cudurdaarku boos fiican ka haystay. arinta labaad waxa ay labada dal isku yihiin. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku dheeraaday inuu ka sheekeeyo waxa ayna labada dal isku yihiin ilaa heer uu sheegay inay calaamadu xataa qadiyadaha labadan dal ka dhigaynin kuwa kala duwan. muujinta waxa labada dal ka dhaxeeya marna waa dan siyaasadeed marna waa dan shacab, balse marka laga hadlayo Jabuuti iyo Soomaaliya wuxuuda waa dhaliyo. dad badan ayaana Xasan Sheekh ku ammaaneen sida uu u muujiyay miisaanka iyo macnaha waxa labada dal ka dhaxeeya, sida shacabka Soomaaliduba u diideen in cilaaqaadka Jabuuti la xumeeyo ama dalkan laga fogeeyo. waxa la aaminsan yahay inay cimro qaadasho u tahay siyaasi walba oo Soomaali ah oo isku dayay inuu labadan dal kala fogeeyo. arinta saddexaad waa ahmiyadda cilaaqaadka. iyadoo uu gobolku ka socdo loolan xoog leh oo uu dal walba dantiisa gaarka u xarbinayo, haddana in ay labadan dal isku joogsadaan oo garbaha isgashtaan si ay natiijo wax ku oola u keenaan waa mid macno leh. madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu fariintiisa ku muujiyay ahmiyadda cilaaqaadka, gaar ahaan iskaashiga dhaqaalaha, amniga, horumarinta bulshooyinka. danaha labada wadan ee heer gobol iyo heer caalami ayaa ahaa tixaanaha soo jireenka ah. arinta afraad waa diidmada shacabka, inay shacabka Soomaalida Farmaajo ka diideen inuu Jabuuti takooro isagoo isxijinayo Itoobiya, Eritrea. waxay ahayd dareen Soomaaliyeed oo aan la bedeli karin lana beenin karin.
tani waxay shacabka Jabuuti marku tahay xujo marna waxay ku tahay abaalgud maadaama ay kaalin la inkiri karin ku lahaayeen dib u raadinta Soomaaliya burburkii kadib safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo booga dhayidii uu Jabuuti u sameeyay ayaana dad badan ku tilmaameen tallaabadii ugu munaasabsaneed oo uu ilaa iyo haddaba madaxweynuhu u qaaday dhanka siyaasadiisa gobolka guud ahaan daawadayaal wanaagta warki oo aad kala socoteen channelka Hubal News fadlan daawade dad ku cusub tahay channelkan qayb ka noqo saaxiibada ka hela wararka alaabaan halkan ku baahina aragtidiinana qaybta hoosan uga wadaaga muuqaalkan oo sii share gareeya asxaabtiina laagtiinana waa inoo dhiirigelin waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubal News